السلام عليكم ورحمة الله كسر أقوم عاو مر 10 كيلو بعد أيام عاو بلابنا إكسل كادي لا يدادو مرة هسال كان نقلا صون إنسان يلسا يوتيوب كينا لبضة يوتيوب كسبسكرايب يعني صار دونتان هدي لا يدادو مركز وحنو كهذا دكان على كلا دوان هايبيو قيمة وكويبينيو يلسا ألافت عدد كأوهيو أنت لاقته يعني برنا مركز سوقيو قيمهان لعجهان أنت نقونسو يعني برنا أيضا هدي لا يدادو مركز كوباد نمبرادن labada number ee isbarbar yaala si aan u kala duwano mid ahaan lacag ahaan maadaama halkaas qiimo ay tahay oo price tilmaamay ama lacag uu tilmaamayo lacag ahaan ayaan u bedelanaa numberadan marka koowaad saasan wada dooranaa right click ayaan leenahay format cells ayaan leenahay kadib waxaan noo soo baxay format cells waxyaabo badan ayaa ku hoos jira alignment baa jiro font baa jiro border baa jiro field baa jiro protection marka password wax lagu xidhanayo document-kaaga inaad ku xidhataa doonaysid xagga number jiro currency baa jiro accounting baa jira date baa jira percentage baa jira fraction scientific saas oo aad u soconaya kadib anaga lacag maadaama aan socono waxaan ku dhafanaynaa currency gaasaan ku dhafanaynaa halkaas by default waxaan oo yaalo calaamada dollarka aan oo yaalo lacagaha kale oo dhan way ku hoos jiraan yen baa ku jiro pound baa ku jiro euro baa ku jiro yuan China wax lacagaha oo dhan way ku jiraan laakiin se anaga maadaama dollar ugu socono dollarkaas ayaan ku dhafanaynaa okay ayaan leenahay calaamadihii dollarka iyo noo wada saaray lacagtiisooda oo dhan markaliya markaas qiimaha alaabtan aan u ogaano waxaan leenahay equal to ayaan leenahay B2 waxay taalaa B2 iyo C2 oo lagu dhiftay C2 ga waxa noo yaalo alaabta cadadkeega noo yaalo sidoo waa taas sida la soo qaatay waa taa tuuga la soo qaatayna waa tuudaas TV-ga ka horeysa ee alaabta ka horeyso marka saleska yaa la isku dhufanay labada sales yaa la isku dhufanay enter yaa leedahay markaas khasama inaad mid walba equal kalintan aan hoos u socono mar haduu ka koobad noo shaqeeyo formulaha calaamada geeskaas baan imanayna marka calaamadu ay isku bedesho isku talaab hoos ayaan sida ugu soo jeedeynaa kadib wuxuu noo wada shaqeynayaa dhammaan suuqeynta inuu shaqeynaa ninkan alaabtu soo iibsaday ama ganacsadaha alaabtu soo iibsaday hadii saleskaygu hoos u dhacay uu leeyahay laba mid baa ku kordhinaya saleskiisa ama lacagtu ku kordhinaya sida caadada oo dadka kulay alaabtu ma kordhiyaan lacagta sida caada dhaqanka dadku lacagta ku kordhiyaan lacagtan uu kordhinaya oo ka dhigaya $60 bal $100 ba hadaan ka dhigna ka hor $100 hadaan ka dhigno wuxuu u tagaysaa 10,000 5,000 bay ka tagaysaa 10,000 bay tagaysaa 50 maadaama ahayd 50 kala ku daray 10,000 ay tagaysaa kadib kuwan kala saas oo kale ama bas tan uu kordhin karaa haduu yahay ganacsada xaqoota kan content-iisu ku daynayaa si kale uu kordhisan karaa alaabtan ayuu ka dhigan karaaba 200 oo TV ma soo dejisto oran karaa kadib halka dhankaas tan marka la isbarbar dhigo tan ganacsadaha macaash badan buu ka helay laakiin sales markuu badiyo lacag buu helayaa laakiin waxa laga yaabaa inuu aan faa'iidadiisu saas ay sida tan hadii la kordhiyo inuu badan ba laga yaabaa markaas labada mid buu kordhin karaa saas lagu kordhin karaa ninkan guud ahaan lacagtii kaga baxday ama raasamaalku ugu fadhiyo alaabtan oo dhan ay ugu fadhido si aan ogaano halkan ayaan leenahay grand total kaasan imanayna ama bas grand total ayaan leenahay kadib halkaas tirada hoosteeda lacagta isku geynta lacagta hoosteeda imanayna equal to aan leenahay sum maadaama isku geynayna mar walba sum equal to nan ayaan leeyahay sum baan double click leenahay kadib koraan ka soo bilaabana ilaa hoosta marka sidaas calaamada noogu D2 ilaa D7 ay noo dooranto enter ayaan leenahay lacagta kaga baxday guud ahaan alaabta lacagta ugu fadhido afan lacagtu ay ugu fadhido alaabtan iyo soo saaray aba ka dhigantay guud ahaan wadarta guud ee lacagta ay ugu fadhido alaabtan u taala store-ka ayuu soo saaray saas uu go'aan ku qaadanaya oo oranaya lacagteedii ku soo gatay alaabtan intaas ay ahayd waa inaan saleska ma kordhiyaa ama bas qiimaha aan kordhiyaa oo dhan saas uu ku go'aan qaadanaya markaas caawa 10ku intaas aan uga ekaado waad mahadsantiin YouTube-keena subscribe noo saara comment nooga bixiya barnaamijkana share dhaha hadii la yiraahdo waad mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh